aniga saddex jeer baan halkaan imid 2010 World Cup markaas UN-ka ku shaqaynayay cayaarihii soddon maalmood baan joogay laakiin waxaan ku ekaa isbardigooyinkii uu inageynayay in yar oo walaalkay Soomaali uu ka mid yahay umbaan aragnay xoogaa iyo niman oo mataqaana masaajidka aan markaas kula tukanay kadibna waxaan halkan ku soo noqday 2012 bishii Maarch 13 oo aniga haddana markaas ahaa la taliyaha gaarka ah ee wasiirka arrimaha dibadda kadibna waxaan ku noqday xamar waxaan aniga ku jiray liiska candidateska safaaradaha la magacaabi doono waxaana markaas iga ballan qaaday anigana aan codsaday 6 sano maadaama ay jiro nabiga laftiisa 63 oo ku dhintay wax badan oo uma harin bal meesha la yiraahdo Makka iyo Madiina bal habeen jumcada meesha tag maalinta kalena dadkaaga mataqaana jidda jooga oo adeeg ayaa ku baxay anoo taas sugaya ayaa madaxweynaha halkan yimid magacaabadii nin kasta baqshad baa loo dhiibay anigoo markaasi rajaynayo inaan Saudi Arabia aan safiir ka noqdo haddaan meeshii tagnay maxkamadii dhamaatay haddaan ku reebo waxaa ku dhiga South Africa waxaa Saudi Arabia waa SA South Africa waa SA wixii meel ku qaldan waxaa ku noqday madaxweynaha South Africa haddaan adigu cibaadada dadka halkaas ka soo bixaysaa laakiin halkaas tegaysaa garabkaaga la waxaan yidhi waayahay safaaradda igama horeeyo dhismana ma jiro Saudi Arabia dhismihii Soomaaliyeed ee kontonka sanadood safaarad ahayd ayaa taalo ninkii safiirka ahaa oo baa laga bedeli lahaa shariif unbaa tegi lahaa sidaas lagu kala tegi lahaa ee meesha aad hadda sheegaysa waxba igama horeeyay dee waxaan rabaa intaad isku leexataan sidaan ku degi lahaa wax samee dadkaaga kaala soo hadlay garabkaaga allaha galo shariifka waa u duceeya socow aniga waxaan hubaa insha allah haddaanan dhimanin in safaarada ugu wanaagsan oo Soomaali ay leedahay adeeg ugu wanaagsan la samaynayso sanadka aan hadda joogno 2000 laba saddex iyo tobanka sanadka oo 2013 haddii la gaaro in waxaan hadda ka hadlayno oo dhan ay dhammaan doonaan oo noqon doono safaarada Soomaaliyeed oo markaa hadda dhibaatada kala sii jirta waxaa waay isla safaaradan oo aan haysanin waxba oo aan laakiin rajaynayn in ay wax kasta ay gacanteeda soo geli doono ayaa waxa ay ku adkaajgaraysan tahay hadda Mozambique, Angola, Namibia, Zimbabwe, Lesotho waxaa la yidhahdo saafar mataqaana businesska halkaasoo aad ogtihiin hooyooyinkeeni walaalaheeni gabdhaheeni inay xabis ku jiraan subaxiina la soo bixiyo beer lagu daro maqribkiina xabiska lagu celiyo haddaanan isdabaqaban waxaan u malaynayaa magacayaga inuu meel cidlaha ku dhici doono dabeel baa timid shalayta waxaan balaayada aan u galnay waxaan ka fogaanay diinta waxaan ka fogaanay cadaaladda hadda waxaan dareemayaa in Soomaaliya waqtigii dhibaatada ay mari lahayd uu dhammaaday oo hadda iyo wixii ka dambeeyey mataqaanaa beel cusuban ilaahay hanoo furay uu noo furmay waxaan rabaa isbeddelkaasi inaad gacantiini aad ku beddeshaan oo si wanaagsan aad u beddeshaan Soomaalida wax mataqaano waxaan la yidhaahdo xadiidka nabiga oo ah khayrul umuur awsataha mataqaano Soomaalida dhexda ma istaagi kartaa wax bay samaynayaan wanaag ku sameeyay xumaan haddii la yidhaahdo dib u
معلم القرآن لها من وكسر شقيه وحوليات سفارة نحن لو قبل إسلامك سفارة وحيكو قبل إسلام أردنا إليكم آليهم ساكت ما نعطوك بعد القضاء أي محمد بهذا وحاكم بهذه عقلي اللي يقول بيدي الله وحاكم بهذه توقفت نفسي الجنسية معها لكن ذلك كنا وضع مثلا الدولة سيدة حواليه حلقة تسكجوها عن ذلك نآلي هذين آلان السابق اللي كانت تذكرين هذين صور وانا يعني كنتين يقول وانا يعني صور وانا ماشي لوكيشن كأولوك بعد يوجد كلام يوجد لها أدوين نسان iyo lacagyo bajaarka ku jirta iyo kuwa aad badka ku duugaysaan iyo kuwa nin aad ku aamintaan aad aadihiin sharcigii aad ku hanan lahaydan ee baatakoobka ayaa idin sameynaya waa ula xisaabtamaysaa safaaradda ma lahaanayso sheekh midaan bishiya ilaahay hadduu yidhaahdo safaaradda ma lahaanayso soomaalida waa islaqaana cabdilxasan wuxuu musuqmaasuqa soomaali waa meheradeedii meheradaasi hala ilaawo hal iscafiyo dhibaa dhexdeena la dhex dhigay isweydiiya culimmadeena weydiiya aqoonyahankeena weydiiya injineeradeena weydiiya haweenkeena weydiiya bal iswarsada oo maxaan isku degaan carab qof sheega hadlaya odol baa aragnay qof kasta hordaaya safaaradda ma lahaanayso shariifka gobolka uu ka imaan lahaa qof inta ka soo dhacay ma laha gobolaysi ma lahaanayso rasmiga aniga aan sameeyay ayaa waxay tahay safaaradu waxay heli doontaa lacag badan oo aan idinku naftiina la yaabi doontaa halkan anaga aanu meel fadhiisanin dowladda South Africa waa ku mahadinayna inay u ogolaadaan carruurtayada waxbarasho caafimaad waxaan noqday caafimaad iyo in ay exercise garaysaan idinka aqoontiini ganacsi oo aad idinka shaqaysataan maanta sida Kenya oo kale 1 milyan iyo 700 oo kun oo xero ku jiro la quudinay aan ahayn nasabiyada Soomaaliyeed badbaadisay xoolihiin Allah badbaadiyo aqoonyahanka halkan joogana mas'uuliyad gaar ah ka saaraya waxaa la samaynayaa registration yaa Soomaali ahayn waxaan samaynaynaa tirakob rasmi ah لأن حتى هذا بيجلس كذلك نوع هذا بعد لين لما تنشر إلى أفضل الشر في حساب قياسي هذا لما تنشر ليش هذا